wixii ummadda u dana unbaa waddankana u dana inaha ku dhaqan caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa soo dhaweeyay go'aankii golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku meel mariyeen xeerka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka waxaan leeyahay hadhow saddexda xusbiya imka loo xidhay yaanay hadhow ninkii dhacay haddana idab darro kala samaynayne ninkii cadaaladnimo nin waliba uu siduu wax u helayo wanaag wax ugu heli doonayo inuu falowgeed gala weeye labadii nin ay isku dubnaan jirayna codkooda dee ama mid ha ka soo dhigaan haddii kale ay laba kala noqonayaanna nin walba nasiibkiisu wuxuu siiyo ha la eego waxaan leeyahay ummaddu way ku faraxsan tahay wixii ummadda nabadgeliyada iyo wanaagga iyo horumarka u fiican baa u fiican waananu ku faraxsannahay wallaahi horta dee Somaliland waxay intaaba ku soo caanamashay isku tanaasul iyo in dee la isku turo waayo xayaaliyada guddidii odayaashu talada ay arkeen hadday golaha wakiiladu ansixiyeen maadaama ay yihiin iyagu hay'adda sharci dejinta waa soo dhaweyn aad iyo aad u hambalyeynaya golaha wakiilada Jamhuuriyadda Soomaaliland guddidii sida gaarka uga shaqeysay in xeerka amendment ku samayso isla markaana ay ku samayso ay dhammaan qodxihii waxa la oran karaa qodxihii khilaafka barbilowga amba salka oo amba mar walba khilaafka soo celcelinaa siyaasiga inay dhammaan ka tirtireen isla markaana ay ka dhigeen xeer in badan aanu intifaacsan karno waxay fiican mar walba amnigu baan jecelahay waxaan leenahay qolooyinka kale ee diidan ee annagu waxaan doonaynaa tahay inay soo horso golaha ururadu waxaan leenahay war amniga maalinba yaan la odhan qolo maalinba la barin xaafad inaynu qaran noqono loo baahan yahay xaafad noqono lama baahno kolba xaafad la bariyo inay qarnamadu shaqayso oo aynu midnimadu ka shaqayno aynu dad mid noqono ayaa loo baahan yahay waxaan leeyahay waan soo dhaweynaa baarlamaanku xeerka ay ansixiyeen doorasho la isku saarayo xeerka ay shalay golaha wakiilada ansixiyeen aad iyo aad baan ugu taageersanahay xeer wanaagsan buu hayo dadkiina qulubtoodii dejiyay dadku bariyahan walaac bay ku jireen iyo ma garanaysaa maxay noqon doontaa baa badneed marka waxaan rajaynayaa xeerkaas inuu noqdo kii dalka dejiya dalkuna ay ma garanaysaa doorasho ay u dareeraan annagu haddaanu shacab nahayna waxaan la gudboon inaan ma garanaysaa si degan aanu u codeyno oo dalka wixii dan ugu jirto aan ka codeyno waxaan leenahay doorashada baarlamaanku soo ansixiyeen iyo waanu soo dhaweynaynaa annagu dadkuna doorasho diyaar u yihiin aw hore kuwa joogay kuwii ku horreeyeyba dee annaga u codaynay guryahoodii kamay soo qaadan mawla xeryahoodii ma garanaysaa fahano kamay soo qaadan ee dadkana ay codeeyey dee doorashada haddii imikana la qabanayana dee annagu walba diyaar baan u nahay anu waxaan u arkaa dee raygaasi in arrinkaa ansixiyeen oo arrin fiican yahay in ummadda laga ilaaliyo qaybsanaanta iyo maaragtay waxaan ummadda kala kaxaynaya dadka kala kaxaynaya laga ilaaliyo mar leeba waa muhiim because dadku ummad meel wada degan waxay awood ku leedahay intay dadku ay midaysan yihiin ee ay dadku maaragtay dhinac u wada jeedaan ayay dadku wax wada qabsan karaan oo la shaqaysan karaa oo maaragtay nabadda la ilaalin karaa laakiin mar haddii dadku ay iyagu isku soo jeedsadaan oo shaki iyo balaayo waxaas dhacaan dee meesha awooddii baa ka baxaysa waxaan taageersanay khilaafkaas siyaasiga golaha baarlamaanka ay dhameeyeen baan si dhab u taageersanay go'aankii shalay ay golaha wakiiladu soo saareen wuxuu ahaa go'aan saxa dalkuna doorasho u dhaqaaqay waxa la yidhi dalkuna doorasho u dhaqaaqay waxaan hurayn horaa loo yeelaabay Soomaalidu ku mahmahadaan qaraarka shalay meel mariyeen golaha wakiiladu runtii waxa aad iyo aad baan u hambalyeynaya waayo waxaan oran karaa intii golahaasi meesha yimi ee ay yimaadeen waa qaraarkii ugu horreeyay ee oran karo iyagoo wada jira ayay meel mariyeen taa horena waa tii u soo saareen in magaranaysa doorashooyinkii waa tii la soo celiyey ee la yidhi tusa saar ha la galo taa waan taageersanahayoo doorashada anu waan taageersanay in doorasho la galo aad iyo aad baan soo dhaweynayaa waa guul weyn oo Soomaaliland u soo hoyatay waa mid jaangoysay murankii siyaasadeed inta badan dalka ka soo taagnaa aad iyo aadna golaha baarlamaanka waanu ku hambalyeynayaa doorashada waa muhiim waana soo dhaweynaa anigu qodobka iyada ah ee odhanaya doorasho saara dalka ha laga qabto aad iyo aad baan u taageersanaa dan dhalinyarada Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan caasimadda run ahaantii haddii aan ka hadlo murankii siyaasiga ahaa ee shalay toole goloweynaha golaha wakiiladu ay inaga soo afjareen run ahaantii waxaan odhan karayaa wuxuu ahaa muran loo baahnaa in la soo afjaro aadna way ugu mahadsan yihiin cid kasta oo si uga shaqaysay maxaan idhaahdaa ama cod ku caawisay ama aqbashay ama soo jeedisayna dee jazaakallaahu khayran baanu leenahay madaxda qarankana waxaanu leenahay waa dadaasheen halkaa ka wada haddii aanu aan dareenkayga idinla wadaago arrinkan shalay toole waxaan u arkaa arrin saxa sidii aynu rabnay baan u arkaa
dhammaanna dadka waxaan u sheegayaa in nabadgelyada la ilaaliyo wixii aynu sugaynayna dee intaasunbaaba ahayd markaa mucaarad iyo muxaafidba maanta waynu midaysannahay horta waa hawl culus oo qarankana ku soo kordhay xaalad culusna qaranku waa ku jiraa insha allah waxaanu rajaynaynaa inay ka furdaami doonto oo ay uga saari doonto dhinaca guusha qarankuna wuxuu u socdaa guul buu socdaa waxaa jira dhammaan dad badan oo qaranka doonaya inay hoos dhigaan war qarankan uu tallaabsaday meeshana ilaahay baa wata yaan lagu habsaamin yaan lagu mashquulin hore dadku ha wada socdaan arrinkii shalay tole ay ansixiyeen golaha baarlamaanku aad iyo aad baan u soo dhaweynayaa waxaa ku jirta dantan qaranka kolba sidii loo jabaa loo dhutiyaa waxaan leeyahay waxaan rajaynayaa golaha guurtiduna inay saa u ansixin doonaan aad iyo aad bay u fiican tahay in la isku sidko doorashada iyo xusbiyada qaranka ee soo biiraya sababtaasna waxaa caddaynaysaa tii horey wax ka barannay wax aad iyo aad faa'iido u ah dadka iyo ummadda waayo tii baarlamaanka iyo tii dowladaha hoose ee la isku sidkay faa'iido weyn iyo kos badan oo lumayey ayay soo koobeen waxaan leeyahay doorashooyinka isku sidkan waa sax baan leeyahay qaranku ha guulaysta innaga waxay noo dana qarankeena guulaysta waa anigoo ah khadar maxamuud axmed khadar xeefo iyo cabdicasiis cali nuur telefishinka qaranka jamhuuriyadda somalilan caasimadda hargeysa